دلكيغو هدانا كوديمن هدان ديغيغا كودين dhammaan shacbigii ku geeriyooday mudaharaadkii ka dhacay magaalada Boorame xalay ilaa maanta sidoo kale waxaan alla uga baryayaa inuu boogadhayo dhammaan dadkii nagaga dhaawacmay shacab iyo ciidanba waxay ahayd dhib laga baaqsan karayay haddii caqliga la isu geeyo waxay tahay dhiilo iyo dhagxumo aan dhagaha reer Soomaaliland u wanaagsanayn waxaan murugada iyo xanuunka la qaybsanaya dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay waxyeeladu ka soo gaadhay mudaharaadka ilaahayna waxaan inooga baryayaa inuu dhibta inaga dulqaado xukuumaddu waxay diyaar u tahay in eheladaas cawilnaq iyo gurmadba loo fidiyo saacadii aynu soo dhaafnay ummadeenna waxay wajahday xaalado xanuun badan waxa dhacay khasaare ka farxiyay badan oo jecel in Soomaaliland maalin uun ay wax noqoto kana nixiyay cid kasta oo xaq dhowr u haysa xurmada nafta alla siiyay iyo isku tashiga iyo nabadda qarannimada Soomaaliland walaalayaal anigoo caawa huwan sharaftiinii madaxweynenimo aad igu doorateen waxaan idinla hor imi inaan idinla qaybsado murugada iyo xanuunka geerida dhaawaca burburka danta guud iyo khasaaraha ka dhashay wararka uu si xun wuxuu sheego inagu soo dhex tuurayo taariikhdu waxayna bartay xaqiiqda ah inaanay ciidina dhayal ku qaadan karin dhul iyo deegaan cid kale ay degto maantana suurtagal ma noqonayso in gobolka Awdal ay taariikh cusub ka qoranto oo ay tirtirto taariikhdaas qarniyada soo jirtay cid kasta oo u fakarta inay taasi dhici kartana waa cid aan aqoon u lahayn ilbaxnimada dadka gobolka iyo haladayga ay weligood ku ilaashanayeen hiddahooda iyo lahaanshahooda taariikhiga ah kumanaan sano ayaynu dhulkan ku soo dhaqnayn inagoo intan ka Italian shisheeyo ku soo duulay oo inaga awood badan ayaa inaga qaadi kari waayay maantana ma jirto cid awood u leh inay qaado meel cid kale ay degan tahay ama ka riixi karta walaalayaal dawladnimada dadka oo dhan baa leh sidaa awgeed madaxweyne ahaan waxay ugu waajib ah inaan cid walba xaqeeda dhowro cidna aanan ka ogolaan dulmi cid kale xaqeeda ku qaadan karto wixii dhacay baadhis rasmi ah ayaanu ku wadnaa qaladaadka dhacayna waa laga xisaabtami doonaa muwaadiniinta aynu jecelnahay ee maalmaha khayr kale inaga geeriyooday iyo inta waxyeeladu soo gaadhay shacabka iyo ciidankaba waxay heli doonaan xuquuqdooda iyo daryeelkooda ay mudan yihiin waxa aan faraya dhammaan ciidamada qaranka ee militariga ee magaalada ku jira inay dib ugu noqdaan xeriyahooda sida oo kale waxaan ugu baaqayaa salaadiinta madax dhaqameedka aqoon-yahanka ganacsatada reer Soomaaliland inay degdeg uga hawlgalaan sidii uga qayb noqon lahaayeen xasiloonida gobolka Awdal iyo caasimadiisa Boorama walaalayaal hal la isdejiyo noloshii magaalada caadi ha lagu soo celiyo cibaadada Alle ha loo jeesto